الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبيال كسو دhowaada casharkeeni labaad ee qaybta intermediate-ka. casharkeenan maanta waxaynu ku baran doonaa qayb kale oo la socota ICT Foundation. Koorsadeenan Forex-ta oo bixi Easy Forex course waxaan maaragtay ku qaadan doonaa ilaa 4 system oo kala duwan. ICT-na wuxuu ka mid yahay 4 system mid ka mid ah. waxyaalahan aan baranayo dhan dhamaantood maalin kasta uma baahnin, laakiin midba maalin buu ku imaanaya. midba maalinta uu ku yimaado waa inaad taqaanaa sida loo isticmaalo. marka maanta waxaynu qaadan doonaa AMD wax loo yaqaano oo maaragtay la dhaho accumulation, manipulation iyo distribution. waxa ay yihiin Juda swing iyo waxa ay tahay SMT diversity iyo waxa ay tahay sida loo fiiriyo premium iyo discount. ayadana waanu isla eegaynaa. AMD waxaa loo soo gaabiyey accumulation, manipulation iyo distribution. accumulation-ku wuxuu dhacaa inta ugu badan suuqa Asian-ka marka la joogo. suuqa Asian-ka oo kale suuqu wuu iska wareegaa oo inta badan wax badan ma sameeyo. meeshaan oo kale maaragtay saas ugu laalaabanaya, maanta ugu laalaabanaya. London markuu furmo, London baa looga qaadaya. Asian loogiisa oo kale meelahan ku beegan iyo equaliyada meelaha yaalay London baa qaadaya. London markuu qaado manipulation ay waxa noqonaysaa dad baa maaragtay la manipulate garanaya, dad baa maaragtay been loo sheegay camal. and then qofka halkan oo kale markuu structure-ku saa isku bedelo wuxuu moodayaa suuqu inuu sell u socdo, maadaama suuqu halka ku wareegay structure-kii la bedelay. qof baa wuxuu isdhahayaa suuqu waa sell ahaan u galbo isdhahayaa qofkii. maxaa la dhahaa marka waa manipulation. looyadaan oo dhan baa la xaaqaya marka halkan lacagtii lagu ururiyay xilligii Asian-ka baa maaragtay la qaadaya. looyada markii la qaaday dan haddana suuqu hadhow halkaas jihadiisa ka soo bedelinayaayo halkaan maaragtay jihada saxda ay ka dhacaysaa oo maaragtay manipulation-ku markuu dhamaado danna waxaa baxaya dhaqaaqii saxda ahaa oo distribution baa la dhahaa. marka inta ugu badan Asian accumulation bay samaysaa, lacagtu saan u ururtaa dan London baa furmata, London baa manipulation ka samaysa. sidoo kale structure-ka maaragtay laftirkiisa hadhowna soo bedesha. dan markii la yimaado New York baa fursada saxda ay inta ugu badan ay dhacdaa. halkan London markuu iska soo bedelo meelahan oo kale ay joogtaa laga yaabaa New York furmo, and New York ay fursada saxda ah ay furmato. maadaama suuqa New York seen casharada hore kusoo qaadanay uu yahay suuq xoogaa maaragtay dhaqaaqiisu fiican yahay, warar badan jiraan oo news suuqa dhaqaaji ay jiraan, sidoo kale volume iyo volatility badan uu suuqa soo galo markii la joogo New York. marka accumulation waa suuqa la ururin. manipulation dadkii ba maaragtay la manipulate garanaya oo halkan dad badan ba SL-koodu maaragtay halkan kor yaala. maaragtay laga yaabaa in kor u soo ganacta SL-kooda mar looga soo dhacay marka kadib kor la aaday, ama in intay isdhahan trade-ka halkan uu fursadii silka sax ka tahay saas u qaata hadhowna saas in looga dhex baxo maaragtay dhinaca saxda la aado oo jiha beena ayagana loo diro. marka manipulation-ka inta ugu badan waxa ay dhacdaa labada saac ee u dhaxeeya London iyo Asian-ka xilliga u dhaxeeya ay inta badan dhacdaa. saacada 9 bay inta ugu badan dhacdaa. saacada 9 AM ay inta ugu badan manipulation ku dhacaa. saacadaas waxay isdhihi lahaa aniga ahaan waa saacada ugu xun ee la trade gareeyo. saacada maanta 9 AM waa saacad xun aad maaragtay been maaragtay inta ugu badan manipulation bay samaysaa. haddii dee qof structure-kiisa ku dhagan oo maaragtay suuqa maaragtay u kala waadaxsan yahay waxaas oo kale haddii aadan ahayn iska ilaali in saacadaas oo kale maaragtay aad xogaa suuqa ku degdegtid adoo markaas suuqa soo hore u soo galay inaad isdhaahday fursad hore ka dhiso. marka xilliga maaragtay London ay furmato oo maaragtay markii ICT la joogo loo yaqaano silver bullet-ka xilligaas oo kale ugu fiican. saacada London markay furmato labada saac ee London ugu horeeya waa trade fiican baa baxa markii ay isticmaalaysid ICT concept. markaas oo kale baa ku fiican inaad trade gelisid. laakiin haddii qof structure-ka yaqaano wixii kale waa daxsan yihiin aad tahay saacada 9 macquul in fursad kugu soo beegmato maalin marka maalintii fursadaas kugu soo beegmataa hayse dhihin yani saacada lama trade gariye kabud. fursada haddaa hesho ay waxaa ku dhamaystirto waad qaadan kartaa. waxaanu u gudbaynaa bogga labaad baynu u gudbaynaa oo SMT-ga baynu isaga yar hal mar ka soo boodin Juda swing oo maaragtay halkan inoogu jirta iyaduna Juda swing iyo manipulation waa isku mid.
Juda swing iyo manipulation waa isku mid oo maaragtay magaca un baa loo kala bedelay maahane Juda swing kaasi waa isku meeshii dad baa xogaa magacyada ka bedeshay si ay casharo badan u gadaan oo maaragtay qofkii markuu wax cusub u arko isu dhaho waa ninkaas wax uga duwan oo kana maaragtay ka wanaagsan camal marka Juda swing iyo manipulation waa isku mid oo wax badan ma ku kala duwana ereyada un baa la saxday marka saas oo la socdo midaasna waxaan u gudbaynaa SMT SMT gu waa maxay SMT gu waxa weeye laba lacag oo correlation isla leh inaad barataa wanaagsan lacagaha correlation isla leh iyo lacagaha kale correlation maxaa la dhahaa lacagaha isla leh waa lacagaha isku jihada aada hadii lacagtan ay bay aado midda kalena bay ayaduna aadaysaa hadda euro bay aaday GU-na bay aadaysaa hadda USD CAD ba maaragtay sel aaday USD CHF-na selbi ayaduna aadaysaa saas oo kale waa lacagaha maaragtay correlation ka isla leh correlation baa isagana 10 baynu ka soo sameyn doonaa insha Allah correlation ka iyo lacagaha isla leh marka lacagtan waa euro GU oo maaragtay GBP USD oo lacagta pound ah lacagta tan waa lacagta euro oo maaragtay qaaradda Europe laga isticmaalo ugu badan ba labadaas lacag correlation bisla leeyihiin correlation koodu aad buu u fiican yahay ilaa 80% wax ka badan ayaa la ilaa 90% oo kale laakiin asbuuc wax laga maalin wax laga yaabo in ay jihadu hal maalin oo kale ay kala duushaan kala maaragtay laba jiha ay kala aadaan oo midaan laga yaabo in logan ay soo qaadayso mid kalena aysan qaadin camal marka lacagaha correlation kala laftirkooda maaragtay soo baara casharna waan ka soo wadnaa insha Allah casharkaas aynu inkastoo aan dib ka soo gelin doono marka maxaa la dhahaa SMT waxa weeye hadda labadii lacagood isla socday aan ku sheegayay baa lacagta higher low idoo lagu socdo baa lacag high qaadaysa mid kalena ma qaadayso highgii lacag baa high qaadaysa mid kalena ma qaadayso hadda waxa weeye lacag baa waxay qaaday Asian low midna Asian low ma aysan qaadin oo kale waa SMT magarad highgan ay qaaday highgan waxa laga yaabaa Asian high noqdo waxa laga yaabaa new high noqdo waxa laga yaabaa high caadi inuu noqdo laakiin highgan structure badan kama noqdo structure yani la bedelay in lacagtana jihada bedelato oo ay bay aado tan aysan jihada bedelin ay sel soo aado macquul ma taas ma dhacdo marka badanka laakiin waxa macquul ah in meeshii structure-ka ay ka bedelaneysay ay liquidity ku sameeyso intuu kanalku ka dhex baxo oo fiiq sameysto inuu soo laabto markaa kadib jihadii aado waa macquul laakiin inta ugu badan kanalka si body looguma dul xiro oo hadii kanalku si body meesha ugu dul xirmo wax noqonaysa in jihadeedu ay lacagtaas bay u jeesanayso hadii labada lacagood ay kala jeestaan maalintaas oo kale waxa laga yaabaa in warar ay jiraan hal lacag meel ay warar ka soo baxeen hadda sida bonko kale waxa laga yaabaa in warar culus ka soo baxay in maaragtay ama Europe oo kale ama dagaal Europe ka dhacaan oo kale ama Ruushka oo kale wax ka dhacaan oo ay saamayso lacagtaasi bul inta hal mar dhaabo kanalku boodo meesha ku xirmo waa macquul laakiin wax sax ma aha badanka manipulation ay noqotaa taasina marka waxa weeye marka lacag hay qaato lacagna ay hay qaadi weydo waxa la dhahaa SMT baa la tani haygaas maxaa la way qaaday maxaa la tan kalena ma aysan qaadin camal oo halkan dhexe bay ka laabatay ayadoo hayga qaadeen higher low bisameystay higher high baa rabay in keento hadana saas u socoto laakiin meesha u soconaya hayga ma aysan qaadin and then hoos bay u soo noqotay SMT markay lacaguhu sameystaan waxa awood badan labada lacagta aan SMT-ga sameyn ba awood badan lacagta aan SMT-ga sameyn ba awood badan oo lacagta hayga qaaday tan kale ayaa ka awood badan inta badan maadaama ay hayga gaari weeday oo buy riski ay waxba qaban waayeen sell riska ka awood badan oo lacagtaasi selbay u sii soconaysaa baa laga wadaa intaas wixii ka dambeeya camal marka waa la fiirsanaysaa RR-kaaga iyo ilaa meesha aad rabtid baad la sii gaaraysaa marka kana waa tusaale kale oo buy ayagu aadiyay marka waa tusaale ay sell soo aadayeen lacagtu bearish aadayeen kana waa tusaale ay buy aadayeen lacagta euro lowgan way qaaday and then structure-kii bay soo bedelatay halka lacagta GU aysan lowga qaadin oo ay u soo dhawaatay and then structure-kii ay bedelatay ayadu oo ay sii socotay marka labada lacagoodna midna high-gay qaadaysa midna ma qaadayso midna lowgay qaadaysa midna ma qaadayso saas oo kale weeye ayadana intaas inagu gudbina waxaan rajeynayaa in maaragtay inta ku celceliyo kulley aad fahantay waxaanu u gudbaynaa premium iyo discount maxaa la dhahaa iyo sida loo fiirsado loo cabiro ayadana chartiska baynu isla aadi doonaa marka hore aan ku fasiro premium iyo discount iyo waxa loo soo gaabiyo
premium iyo discount waxa weeye dhaqaaq baa hadda ku baxay bay ah dhaqaaq baa iyo saana baa ku baxay in yar buu pullback soo qaatay high lowgiisa waa kan dhaqaaqa waxa xisaabsanaysaa markuu high iyo low leeyahay hadda kan high buu ahaa soo maaha highgiis waa ka laakiin lowgii lama gaarin oo lowgiisa waa ka dhaqaaqa soo baxay lowgiisa waa ka highgiisina waa ka laakiin dhaqaaqa saa iskaga socda ma xisaabsanaysid waa in dhaqaaqa horta laga soo istaajiyo adoo lowgii haysta oo highgiis haysan oo dhaqaaqa xitaa hal mar u soo nasan dhaqaaqa iska socda premium discount ma saaran kartid horta marka ugu horeysa waa in dhaqaaqa laga soo istaajiya isaga dhaqaaqa markii laga soo istaajiyo ayaa premiumka iyo discountigiisa xisaabsan kartaa markii saan dhaqaaqa highgiisa iyo lowgiisa aad labadaba u haysatid meesha dhexdiisa ah halfkiisa dhaqaaqa meesha halfkiisa ah 0.5ka ayaa laba loo kala qaybiya oo qaybtan hoosena waxaa la dhahaa discount qaybtan korona waxaa la dhahaa premium marka dhaqaaqa koran kore waa dhaqaaq buy ah dhaqaaqa buyga ah waa in discount lagu keenaa markii lagu discount gareeyo kadib baad buy gareyn kartaa dhaqaaqa buyga ah markii discount lagu keeno baad buy gareyn kartaa halka dhaqaaqa selka ah oo hadda halkan hadda misalaysan ku sawiro usaan ku ahaa in pullback soo qaatay 0.5 kiisi halkan yahay qaybtan premium bay noqonaysaa halka kana discount bay noqonaysaa dhaqaaqa selka ahna markii premium lagu geeyo meel kore lagu geeyo baa soo sel gareynaysaa oo highgiis iyo lowgiis waa ka anada low ba hadan raadinaysaa markana highgiis iyo lowgiis waa ka anada high ba raadinaysaa intaas uu weeye dhaqaaqa premium iyo discount lacagta adiga waxa weeye hadii hadalka aan ku soo koobo lacagtu markay meel hoose joogto buy garee markay meel kore joogtana soo sel garee oo oraha waxa jirta la dhaho buy low sell high markay meel kore joogto iska sel garee markay meel hoose joogtana buy garee waa intaas marka premium iyo discount waa inta dhaqaaqi waa kan high dhaqaaqi bas u baxay highgiis waa ka maadaama uu pullback soo qaatay lowgiisina hala kan buuha dhaqaaqan gormu samaystay dhaqaaqan wuxuu samaysmay markuu kii ka horeeyay meesha ka saaray buu samaysmay andan maxaa loo baahan yahay 0.5 kiisa inuu kaaga soo hoos maro hala kan baa waxa ka fiirsanaysa order blogaaga very gap oo kale meeshan ku jira waxyaalihii de maaragtay reversalka laga filanayay waxyaalo badan marka ka arkaysa liquidity-gaaga markaa soo heshid soo buy garee ilaa ay highgaas unbaad aduu buy gareyn kartaa sida saxda ah ilaa ay highgaas target garee liquidity-ga highga ah buy side liquidity-gaas baad maaragtay target gareynaysaa marka premium discount waa intaas dhaqaaqa basaad u xisaabsanaysaa last range-gaaga waa inaad haysataa last dhaqaaq in yar markuu soo nasto halkaas fahma in yar markuu soo nasto baad dhaqaaqa highgiisa iyo lowgiisa calaamadaysan kartaa laakiin dhaqaaq iska socdo saan u socda premium iyo discount ma saarin kartid dhaqaaqu pullback yar ku samaysmo markuu pullback ku samaysmo baa leeyahay pullback-taas ilaa halkee bay ku istaagi kartaa ilaa halkaas ay ku istaagi kartaa Soomaa tama halka markaas shift-gaaga iyo structure-kaaga iyo liquidity lagu soo xaqi wixii aan ka heshid soo buy garee ilaa ay haygan baad buy gareyn kartaa oo aad raadinaysaa sharxaadda intaasaan ku ekeenayaa hadda chartiskaynu xoogaa tegaynaa waxaan chartiska maaragtay idinka tusi doonaa insha Allah accumulationka manipulationka distributionka saddexdan waanu ka eegaynaa SMT-ga sidoo kale premium iyo discount waynu ka wada fiirinaynaa chartiskaynu isla tegaynaa casharkeena ugu horeeya hadda accumulationka ahaa accumulation manipulation distribution hadda Asianka waa kan suuqa Asianka kala halkana maaragtay lagu celceliyay and then hal marba Asiankii waxa lagu sameeyay manipulation oo kor baasaas loo baxay hadda waxa laga yaabaa qof inuu soo halkaas structure-kan baayiba u soo socdo halkan baayib markay isku jabisay marka la isjabisay ay markaan isa isku jabisay saan halkan intay order looga timaadabay baayidaas u sii bixi kartaa baa laga yaabaa qof isoo dhaho oo saas u sii qaato adna qofkaas halkii baa laga aadiyaa magarata ama qofba intuu halkan ka galo soo lacagtii ha marka hore baay u socotay saan u socotay and then halkaas structure u arko SL-ka looga soo dhacaya marka xilliga kan hadii aad si fiican u fiirsan hoos saacada meel halkan hoos ku soo qormaysaa fiiriya waa saacada 9-ka soo ma aragtay 9-ka oo kale manipulation ka dhacay 9-kii 25 9-kii 20 9-kii 30 meelahaas oo kale waa manipulation badan baa dhacay hadda markaan oo kale hoos baa lagu soo diray saacada 9-ka markii go ahayd hoos baa qofkaan selbu rabay andan korbe u baxday bahay aaday qofkan kale bahay u aaday marka saacadahaas oo kale waa la iska ilaaliyaa marka suuqa Asianka waa kan xagaan iska wareegay hal mar baa la soo xaqay Asianka manipulation lagu sameeyay Asian high-gi baa la qaaday and then structure-kii wuu soo bedelay markuu saas ku soo bedelay halkaas waad ka soo qaadan kartaa maadaama structure-ka weyn zel ahaa
waxaan halkaas idinku darayaa oo dee casharada badanka waxyaalo badan casharada ku diran oo afka dhaadhaaba jirta marka haddii maaragtay deen qof wax qorta aad tahay waa fahmi doontaa qoran doontaa suuqa volume-ka ku jira volume-ka suuqa ku jira mar walba la soco suuqu hadduu zel saan oo kala u socdo oo time frame-ka weyn uu zel ku yahay only fursadaha zelka ah raadi hadduu suuqa buy ku yahay only fursadaha buy-ga ah un raadi ha iswareerin intaas weeye marka halka kan qofka waxa laga yaabaa inuu maaragtay deesan hore ugu sheegay halkan intuu sel u xisaabsado inuu dhaho halkaas la ii soo jebiyey oo eselkiisa halkan kora dhigto adin waa laga saarayaa waa manipulate baa lagu sameynaa oo lasoo manipulate garanayaa qofkii maaragtay halkaas markii uu kor haddana is xirtayna waxa laga yaabaa inuu qofkiisa dhaho lacagtan baa aadaysa selka way diiday halkana maaragtay lagu dhigana la soo qaaday dhag haddana uu is dhaho kor baa la aadayna isagii saas haddana maaragtay looga sii dhex baxo marka hadaadan structure-ka mar haysan structure-ka guud raac lacagtan hadda zel bay ahayd volume-ka ku jiray selkii unba sii aaday structure-kaaga guud mar walba hayso marka accumulation-ka waa kan lacagta waa la ururiyay waa suuqa Asian-ka marka kuu sheegay Asian-ka dhaqaaq badan ma sameeyo hadda intuu sameeyay waa ka Asian-ku wax fiican ma uusan dhaqaaqin haddii maaragtay cabirka haddii aanu cabirka sameyno ilaa ay 19 bib way Asian-ka tamam soo 19 bib maaha waxaynu fiirinaa London labadii saacadood ugu horeysay bal inta bib aydan ay sameysay London kanalkaan ay ka furmatay 12 ka labadii saacadood hadda maaragtay ugu horeeyay waxay dhaqaaqday 47 ilaa 50 bib aan iska dhaqaaqday bas ka dhig 50 bib labada saacadood ugu horeysay dhaqaaqday hadda tani meeshay 4 saac iyo maaragtay laga yaabo zaid inay 19 bib kaliya dhaqaaqday marka xilliga Asian-ka iska ilaaliya xilliga Asian-ka lama trade gareeyo xilliga Asian-ka lama trade gareeyo marka la joogo lacagahan euro iyo waxa soo kale oo maaragtay currency-ga marka la joogo iska ilaaliya xilliga Asian-ka waa macquul xilliga gold oo kale inuu maaragtay Asian-ka move sameeyo laakiin currency-ga iska ilaaliya marka waa tan lacagta tan accumulation baa lagu sameeyay and then manipulation then distribution ka dhacay oo dhaqaaqii saxda ah soo baxay halka kan waa la iska raftay xilliga New York oo dhaqaaqii maalintaasi wuxuu moodaa inuu soo baxay xilligii London meeshaan oo kale mar kale suuqu wuxuu sameeyay Asian-ka saan u wareegay and then manipulate baa lagu sameeyay oo Asian low-gii baa la soo qaaday halkaas ay kaaga muuqata Asian low-gii baa la soo qaaday and then dhaqaaqii saxda ah baa soo baxayo shiftigii 5 minute-ka ee halka ka dhacay distribution meesha lacagtu way dhaqaaqday ilaa iyo 1 to 2 iyo wax ka badan ayay yar dhaqaaqday okay marka waa kan accumulation manipulation distribution dhaqaaqii saxda ah halka kan mar kale Asian-ka maalintan oo kale Asian-ka waxa uu qaaday daily high buu qaaday oo halka ku jiray isna waa liquidity waynu baran doonaa insha Allah daily high buu qaaday oo maaragtay liquidity halka ku jiray ayaa maaragtay la soo qaaday saan u wareegalana wax badan ma oo sameyn isagii baa maaragtay maxaa la accumulation badan galay adan waa la manipulate gareeyay oo London high-gii baa la qaaday Asian-ka waa lagu dirribay laakiin Asian-ka ma uusan gaarin London high markii la qaaday shiftiga halkan isku soo bedelay 5 minutes saxda halkaas ka dhacday and then selkii saasuu u soo dhacay SL-ka markaa meel dhiganaysid intaas aan dana waa talag labaad SL-ka mar walba waxa dhigataa swing high-ga dabadiisa structure-ka haysatid markaas swing high-giisa dhigo tusaale ahaan sidaan oo kale suuq baa haysataa san kugu socda higher high higher low higher high soma higher high markuu suuqa saas ku jibiyo suuqan xagee buu jibiyay meeshaas kore buu jibiyay suuqan high-gan uu jibiyay markuu high-gan jibiyo ranjigaana haysataa laas ranjigaana haysataa soma bartaan arta inaad fursad ka qaadatid markaas aan lagu soo istaajiyo halka fursad ka soo fulis tamam halkan hadda fursad ka fulinaysid maadaama ranjiga haysato uu kan yahay ranjiga haysatana uu kan yahay ranjigaaga dabadiisa uu dhigo structure-ka ranjigaaga gadaashiisa dhigo SL-kaaga oo ha fogeyn kan ha dhaafin meesha dhexe ha dhigin meelaha dhexe maaragtay ha dhigan inta aan ku sheegay waa intaas meelaha dhexe ha dhigan waliga SL-kaaga meelahaas ha weegi tintan 10 hadii naguma jirin laakiin waa xoogaa tala ah oo aan ku daray SL-kaaga mar walba waa inaad dhigataa meel ku munaasab ah waa inaad dhigataa ranjigaanaad haysataa soo maaha oo kii ka horeeyay meesha ka saaray ranjiga kan oo kii ka horeeyay meesha ka saaray baa haysataa soo maaha SL-kaaga waa inuu ku yaalaa ranjigaaga gadaashiisa professor baan iskaga qorno badna cashirka hore aynu ku soo qaadanay ranjigaanaad haysataa SL-kaaga waa ku yaalo ranjigaaga gadaashiisa target-kaagana waa ilaa higher high inta laga sameynayo
ha dhaafin liquidity-gaas kale ha dhaafin intuu doonaha kuu jiro haddii de 1 to 2 waxaas aragtid intaada waa ka raadinaysidna waa meesheeda hadduu maarta in yar hayga kuugu darayo oo kale laakiin liquidity-ga haddii lasoo qaado inta badan waa lasoo laabtaa marka waxaan kugula talin lahaa SL-kaaga ranjigaaga meelaha dhexe ha ka dhigin meesha dhexe waxaas ha ka dhigin halkaas hadaa ka dhigtidna maaragtay wax macquul in kan intii la soo jibiyo suuq bajahaysa bedesho aad lagaaga sii dhexdiso oo adu waa meel banaan taagan tahay laakiin halkaan dhigan lahayd tamam structure-kii baa isbedelay baa leedahay waa laga yaabaa in liquidity lagu sameeyo wax yar 2 biib ilaa 3 biib oo kale waad gadaal dhigan kartaa 2 biib ilaa 3 biib oo kale waa macquul haddii ugu bato 5 biib oo ay leedahay haddii liquidity lagu sameeyo yaan lagu taaban oo kale waa macquul laakiin haddii 10 biib gadaashiisa dhigtid 15 biib waa dhahdid yaan laga soo dhawaanba dee waa meel kale u socotaa marka taladeedu hadda aniga waxay tahay ranjiga gadaashiisa dhigo oo maaragtay ranjiga inta u dhaxaysa meelahaas ha soo dhigdhigan hadda traderkan oo kale fiiri halkan aan ka qaadanay soo maaha SL-ka xagee noo yaala meeshaas gadaaluu noo yaala suuqii waa kan waa uu soo laabtay intaas oo dhan buu soo laabtay haddii SL-kaagu meelaha dhexe oolaan lahaa meelahan oo kale hadduu oolaan lahaa hubaal waa laga dhex tusi lahaa SL-kaaga laakiin halkan wuxuu yaalaa swing high-ga korkiisu yaalaa maadaama SL-kaagu uu yaalo swing gadaashiisa hadda suuqu isagoo soo laabtay xitaa 5 minute-kii sadana dib u soo bedelay maaragtay lagama saarin haddana halkan waa aragtaa suuqii uu soo noqday dib uu soo noqday suuqa duu hay qaado loo qaaday dib loo qaadana hay buu qaaday uu soo noqday and then halkan dee way ku dhacday TP-gii haddii dee qof maaragtay laga yaabo adag aad tahay oo xogaa adkaysan kara dee intaan maaragtay dadka xogaa waxa la isku dhaafay waa emotion hadda saan kale suuqo TP-ga in yar kaaga dhinay dib kugu soo noqday SL-kaaga soo galay ka soo baxay mar kale ku soo dhex galay hadda aragto wax laga yaabo ilaa inaad maaragtay emotion badan inta wax qaadid aan nixi lahayd hadii badan ku galayso laga yaabo inaad trader-ka xitaa gacanta ku xiri lahayd waxyaalo badan ay maaragtay aad ku fikiri lahayd waa macquul marka trader-ka mar hadaa furto TP SL misug hadda ugu badato in badan markuu ka dhaqaaqo kale break even waa soo gali kartaa partial waa ku sameyn kartaa oo dhaqaaqa qayb waa xiran kartaa intaas oo dhan waa la sameyn karaa oo waa maaragtay waa management laakiin trader-ka oo ku socdo SL ku wada hadda markuu meeshaan oo kale mariyay lacag laga soo qaad bartaas oo kale markuu mariyay bartaan uu mariyay lacag laga soo qaad waxa istiriba kan maadaama uu markaas baxay oo kugu soo noqday markana uu ka saarayay iska xir hadaa dhahdid khasaara ku xirta trader-kii iyo faa'iido aaday baad u khasaaro ku xirtay laakiin waxa laga yaabaa qof kale inuu meelahan ka soo qaatay oo faa'iidadii ka qaatayba ama meeshaan intuu ka soo qaatay faa'iidadaadii maaragtay xambaarsaday marka trader-ka 3 mid waa ku sameyn kartaa break even waa geli kartaa partial waa ku sameyn kartaa TP-gaagana sug SL-kaagana sug laakiin inta wax u dhaxeeya sameeyno gacanta ha ku xirin laga yaabo maaragtay laga yaabo ma TP-ga ilaaway oo kale saan intuu kaaga dhex tuso meelaha mariya ugu timi gacanta waa iskaga xiran kartaa markaas oo kale maadaama dee TP-gaagi la dhaafay laakiin hadduu SL aan horta marna ha noqon SL aan marna ha noqon SL-kaaga yaa lagaaga sii dhex tusino cirka intii lagu galo akoonku yuusan ka qarxin intaasina waa talo casharka aan noogu jirin marka meel ku qoro lana soco haddaynu ku socono casharkeena accumulation manipulation-ka waa kan London aan Asian-ka accumulation buu sameeyay saan u warwareegay haddana manipulate baa lagu soo sameeyay oo lowgiisi baa la soo qaaday dad baa laga yaabay meelaha kan SL u yaalan halka intay fursad ka galeen halka SL-ka u yaalay SL-kooda dhan la soo xaqay haddana fursadda saxda ah ee marka kadib soo baxday 5 minute shift-igi uu dhacay and then bay ay soo baxday oo 1 to 2 iyo intii aad raadinaysayba inaad maaragtay aad ka heshay waxa laga yaabaa fursadda markaa halka ka qaadatay inta casaanka ahna waa inta ku sheegay emotion-kii oo kale markan oo kale waxa macquul ah markaad aragteen saas lacagta ku soo gashay asleeda SL-ka inii wala qaadba maaragtay maxay isku wareerinaysaa amal inaad trader-ka iska xirtid waa macquul trader-ka dib uu soo baxay waa kan wuuna shaqeeyay oo profit baa la qaatay meesha dadna profit qaateen adna inta gacanta iskaga xirtay baad SL-kaagina iyadoo la gaarin baad khasaaro qaadatay marka taasina ma fiicna trader-ka mar hadaa gishid SL iyo TP labadaba daawo waa management waa ku sameyn kartaa partial waa ku xiri kartaa break even waa keesan kartaa haddaad doonto break even ka waa iska deyn kartaa oo maaragtay dee nin wixiisa ku kalsoon marka adigu aad tahay marka kana waa kaas accumulation manipulation distribution-kii haddana sidaas oo sii socday habeenkii buu dhaqaaqay soo u maleynayay trader-kan mid kale
aynu isla sii fiirino oo saddexdaas oo kala sameeyay accumulation iyo manipulation ka sameeyay ama way nagu filayin bay la tahay badinta tan maadaama aan cabaar badan ka sheekeynay waa kaas ashanka waa la ururiya Londonka waa la soo qaadaa saacada qaadaysa fiir waa 8:50 sagaalkii Soomaaliyeed sagaalkii lama tirar gariye is ilaaliya meeshan marka taagan tahay oo kale waxaa laga yaabaa inaad sil ku fakariso isleedahay dhaqaaq markii halkaas laga soo bedelay mar labaad baa la bedelay dhag halkaas shifti u xisaabsatid saacadii sagaalka iyadoo meelahaas Soomaaliyeed sagaalkii meelahaas weeye hooska fiiri sagaalkii meelahaas aad sil u gashid adan lagu sii raaco isalkaaga meelaha kale ku yaalayo lagu xaaqo hadaa isku dhijiso xitaa isalka meesha kale geysatid waa laga dhex baxay waa kanba marka saacada sagaalka aad hal iskaga ilaaliyo haddaynu hal mar ku sii darnana midkeeni aha premium iyo discount horta waxaa loo xisaabsadaa waxaa jira bahal lagu xisaabsado oo loo yaqaano Gambox tan oo kale Gambox kaas oo kale aad ku xisaabsanaysaa saana u soo qabanaysaa kor ayaad saas u saaranaysaa dhaqaaqaaga horta marka koowaadba horta waa inaad dhaqaaq haysataa bal dhaqaaq waa inaad haysataa dhinacun kuugu jeeda ama bay kuugu jeeda ama dhaqaaq sel kuugu jeeda waa inaad mid haysataa tamam markii koowaad dhaqaaqeena weyn haysanaa dhaqaaqan gormo sameysmay dhaqaaqan waxa uu sameysmay markuu kan meesha ka saaray ayuu sameysmay dhaqaaqa kan marka uu meesha ka saaray externalka ayuu sameysmay maxaa u baahan tahay inuu bulba ku soo qaato aan dhaqaaq cusub ku keeno tamam hadda waxa laga yaabaa suuqu halakan oo kale ku maraya meeshan oo kale buu suuqu marayayba halakan uu marayay marka halkan marayay waxa u baahan tahay inaad ogaato meesha uu suuqu ka istaagayo aadanna aad bayda ka soo qaadan doontid ma dhowr blog aan noqonaysa ma meeshan kore noqonaysa ma hoostaas ay noqonaysa intaasba waa inaad maartay marka hore waxa u baahan tahay aad analysis ku sameeysid oo aad si cabiratid marka waxa jirta bahal lagu cabiro oo loo yaqaano Gambox aan ku sheego horay waa tan Gambox kaaga ayaad saas u saaranaysaa Gambox-ku waxay ku jirtaa meesha tan bay ku jirtaa dhinacan bay ku jirtaa bahalada tan ayay ka mid tahay waa taas hoose Gambox hadda rabto inaad numbereeda iyo waxeeda saaxatinna sidaan ayaad ka dhigaysaa qaybta style ka tag sidaan ayay aniga ii tahay waxa la 0daas iyo 0.5 iyo 1 saddexda tigto ii saaran tahay kalarada nooca doonta aad ka dhigan kara background-ka iyo waxaasina sidaas ay yihiin meesha dhexe oo kale wax badan kuma jiraan visibility-ga meelaha laga arkayo ada tigta saaranaya hadba maaragtay time-ka aragtid inaad ka aragtid marka xisaabta aniga saana ay tahay saana waa ka dhigan kartaa sida adiga jaaysha waa ka dhigan kartaa 0.5 ko maxalla 0.7 ko soo muujin kartaa waa qarin kartaa 0.25 laftirkiisa waa muujin kartaa waana qarin kartaa waa jacaylkaaga marka Gambox-ka xagee la saaraa Gambox-ka waxa la saaraa lugtaadi baxday baad gadaasheeda dambe halkaas ka saaranaysaa lugta loogeeda ugu hooseeya iyo haygeeda ugu sareeya maxaa ku dhacay lugtaadu waa inay bulbaag yeelataa marka koowaad lugta loogeeda ugu sareeya iyo haygeeda ugu sareeya baad marka koowaad saas u cabiranaysaa hadda lacala kaba soo qaad halkan suuq maraya order bloodaas oo intaan dambe ma aysan dhicin maxaa leedahay 0.5kga maxaa ka hooseeya oo suuq la iman kara order bloogana ka hooseeya hoose intaan dhan isku order bloog waa ka dhigan kartaa maadaama wax ka dalbaaya ah وسن أنت سكان أود حيني order block بحاجة كديان كرتا zoom بيكون نقون كرتا demand بيكون نقون كرتا سين هو روسو شغلي order block بحاجة كوجرا سيدو كلمة عند حوك كلا لفتر كذا order block يا كوجرا أو كوبيجن 0.25 يعني 0.5 كا لفتر كذا سوق ويمان كرا ونا كي كرا هالكاسو كلا وين كوي حساب سناتا إن جاب بير مكوجرا مش وكلا جاب كا إنك سوميل الحمر جاب كلا كسو تبتي هالكاسو كلا واو معقول laftirkooda liquidity halkan yaalo oo kanaladaas liquidity ah waa la soo qaadi kara wax laga yaabo liquidity-gaas in lacagta kale ay qaaday oo tan aysan qaadin ba macquul liquidity-gaas marka liquidity halkaas kugu jira laftirkooda weyn ku cabirnaadaan andeen suuq markaas wadana buy ka baxaya tamam markuu buy-ga saas u baxo halkaas dhuxu buy ka baxay premium buu ka baxay maxaan ku dhahay premium iyo discount baa la kala sameystaa ande discount buu ka baxay premium iyo discount waa maxay waa markuu suuq meel hoose joogo premium waa maxay markuu meel kore akaragtid inaad ka soo sel gareysid marka suuqan kale discount baa lagu keenay 0.5 ka lagu keenay and then waa buy gareys dhaqaaqa kala haysata dhaqaaqa kale markay heshiisagana sidii salamida baa u cabaranaysa loogi waa kan haygiisina waa kaas leedahay meesha ugu dambaysa tamam wixii meeshan kugu jira cabiro 0.5 ka ka hooseeya order block-gan oo kala ka hooseeya oo lacagtu si fiican ba ay soo taabatay markan oo kale discount-gaas ay timi and then buy cusub ka soo baxday oo haygii hore meesha waa laga saaray sa ujeedaan biriga of structure baa maartay markaas oo kale
meeshii haddana ka dhacay mar kale oo waa kaas hay kala yimi haddana haygaasna si lamid ah waa cabirinaysa markan kale suuqa volume weyn baa galay aad buu cararay laakiin badanka suuqa saas uma cararo oo wax isla la eg ayuu ku socdaa marka kani waa mid buy ah mid sell ah isagana aynu isla fiirino oo premium discount adoo samaysanaya oo suuq sell ah aynu isla fiirinayso halkan baynu fiiriba dhaqaaqa kana markii koowaad haysatay oo selka u jeeday waa kan ranjigaana haysataa oo selka ah seebuu sel ku noqday ranjigan hore meesha ka saaray oo meesha ku jiray ayuu meesha ka saaray maxaa u baahan tahay in premium lagu keeno and discount lagu soo aado oo aad maaragtay soo sel garaysid baad u baahan tahay marka gambugiskaaga waa qaadanaysaa halkaas ayaa saaraysaa lugta meesha ka soo bilaabatay ilaa ay meesha ku dhamaatay baad saaranaysaa dhag waxa fiirinaysaa 0.5 kaaga waxa ka sareeya oo la imaan karo meeshan ugu horeysaba order block baa ka soo sareyso order block taas waa la imaan karaa baa leedahay waana maaragtay laga soo laaban karaa sidoo kale hadii meeshaas xitaa la dhaaf xagee baa la tagi karay waxa la tagi karay order blockaas kale oo meeshaas ku sii jira laftirkiisa waa loo sii tagi karay mar kale waa la taaban karay inkastoo mar laga soo trade gareeyay laakiin waa macquul maadaama 0.5 ka laftirkiisa uu ka hooseeyo waa la aadi karaa waana la iska diin karaa marka saas aad u xisaabsanaysaa premiumka iyo discountiga labadaba waa sel hadda maxaa dhacay dhaqaaqi meel wuxuu yimi premium aadan waa la soo discount gareeyay low kala heshay saasaad maaragtay mar walba u xisaabsanaysaa hadda kan laftirkeeda oo kale waa dhaqaaq selkaas waa la premium gareynaya aadan sel aadan premium sel saasay kugu soconaysaa ilaa inta dee dhaqaaqaagaas la soo jibinayo dib loo soo istaajinayo marka casharkeena ugu dheeraada saaxiibayaal intaasaan nagu joojinaya insha allah aad baad mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qofkii su-aal qabana si khaas ah ila soo wadaago insha allah telegramka iyo instagramka labadaba waa salaamadin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu